القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى 13 bishii Ramadaan sanadkii 480 hijriyada ayay dhacday macrakadii Asalaaqa halka ay jiraan riwaayado kale oo tibaaxaya inay dhacday maalin Jimcaha 12 Rajab sanadkii 479 hijriyada kuna beegan 23 Oktoobar 1680 milaadiyada macrakadaas waxay muslimiinta iyo xaqoodirka ku xaqiijiyeen guul weyn kana guuleysteen ciidamadii Isbaanishka iyo Faransiiska lahaa sababta keentay macrakada inay dhacdo ayaa ahaa in Alfonso lixaad oo ahaa boqorkii qashtaala ee waqooyiga Andalus oo go'aansaday inuu markuu guuleystay oo uu gacanta ku dhigay ka gadaal magaalada Duleydila inuu u jiheysto oo uu qabsado magaalooyinkii Andalus dhamaantood asaga oo ka faa'iideysanaya xaaladii ay ku sugnaayeen mulugtii ama boqoradii muslimiinta hogaaminaya waqtigaas kuwaas oo kala tag iyo tafaraaruq u dhaxeeyay adduunyo jacayl iyo wax la mid ah darteed waxaana loo yaqaanaa boqoradaas muluku dawaa'if waxay ahaayeen 22 dawladood oo yaryar kana dhisan Andalus magaalooyinkeedii oo qura waxa xusid mudan in qaar kamid ah mulugtaas ay u direen Alfonso lixaad hadiyado qaali u ah kadib markii uu qabsaday magaalada Duleydila iska dhaafay xataa waxa jiray kuwa toos u garab siiyay Alfonso lixaad oo ku taakuleeyay ciidamo iyo saanad military si uu u qabsado dhulalka muslimiinta balse markaan waxa uu Alfonso lixaad ku bilaabay dagaalkii xaliifkiisii Al-Mu'tamid ibn Abbad xaakimkii ka talinayay Ishbiiliya waxa uu ahaa xaakimkaas mid ku garab siinayay duulaanadii uu ku soo qaaday dhulalkii muslimiinta gaar ahaan magaaladii Duleydila balse markii uu soo qabsaday oo uu gacanta ku dhigay magaalooyinka muslimiinta ayuu maanta asaga ka bilaabay si uu uga qabsado oo uu la wareego meesha uu xukumayay layaa malahan Al-Mu'tamid ibn Abbad inuu ku garab siiyo la dagaalanka muslimiinta Alfonso maxaa yeelay asaga iyo kuwa la midka ah waxay ahaayeen kuwa si sanadla ah jisyada u siiya Alfonso lixaad waxaana u xil saaraa shaqadaas jisyo ama gibirka ururinta ah gaal Yahuudi ah oo la yiraahdo Ibn Shaliib asaga oo shaqadaas ku wehlinayeen dhowr askari oo qura oo wardiyeynaya Ibn Shaliib sidoo kale waxa jira in sababta keentay dagaalka ay ahayd in Al-Mu'tamid uu ku mashquulay dagaal gudaha ah una suuragali weysay in lacagtii sanadlaha ahayd ee uu ka sugay Alfonso oo dhiibo taas oo dib u dhacday dhowr maalin waxayna arinkaas keentay in Alfonso uu aad uga caroodo go'aansadana inuu ku soo duulo Ishbiiliya oo uu qabsado maalin maalmaha kamid ah ayuu u yimid Al-Mu'tamid ibn Abbad si uu uga qaado jisyadii sanadlaha ahayd markii uu siiyay ayuu gaalkii Yahuudiga ahaa diiday waxa loo soo qorsheeyay asaga oo codsaday in la siiyo dahab qaalis ah sidoo kalena waxa uu handaday kuna hanjabay inay qabsan doonaan magaalooyinka waaweyn hadii uu san bixin waxa la amrayo balse markaan waxa carooday Al-Mu'tamid ibn Abbad kaas oo dilay gaalkii Yahuudiga ahaa asagoo salbiyay meel dheer oo ay dadku arkayaan ka soo laalaadiyay kuwii la socdana dhamaantood xabsiga dhigay asagoo ku sii jeeda Alfonso lixaad magaalada Qurduba ayuu arinkaas soo gaaray aad ayuuna u carooday qabarkaas soo gaaray waxa uuna u soo jeestay dhankaas iyo magaalada Ishbiiliya asaga oo hareereeyay muddo 3 maalin ah intaas kadib ayuu mar labaad ku laabtay magaalada Duleydila oo ah taliskiisa horeyna oo muslimiinta uga qabsaday si uu mar kale ugu soo diyaar garoobo weerar ballaaran oo uu ku soo qaado Ishbiiliya iyo waliba magaalooyin badan oo Andalus kamid ah waxa uu ogaaday Al-Mu'tamid ibn Abbad waxa uu sameeyay oo ah inuu laayay shaqaalihii wax aruurinayay iyo inuu khilaafay Alfonso waxa uuna u diyaar garoobay sidii uu isaga caambin lahaa weerarka ku soo wajahan waxa uuna dhisay dhufaysyo adag asaga oo go'aansaday inuu kaalmeysto Yusuf ibn Tashfin oo ahaa amiirkii dawladii muraabidiinta ee Maghribul Islaam horena loogu yaqaanay Al-Mulathimun ama kuwii afka duubna xaruntooduna ahayd magaalada Maraakish waxaana arinka aad u soo dhaweeyay culimadii waqtiga joogay inkasta oo ay jireen dad badan oo u badnaa umaradii waqtigaas kuwaas oo ka hor yimid in la dagaalamo Alfonso balse taa bedelkeeda la heshiiyo gorgortana la galo loogana tanaasulo wax waliba oo uu doonayo taasna ay tahay wadada kaliya ee lagu gaari karo horumar amni iyo barwaaqo sida ay ayaga la tahay waxaana ka siiya badan in umarada ay u arkayeen muraabidiintii u soo hiiliyay cadow cusub oo qorsheynaya inuu dhulkooda iyo milkigooda kala wareego waxa uu yiri Rashiid
oo ahaa wiil oo dhalay xaakimkii ishbiiliya ee almuctamad ibnu cabaad aabe ma waxaad dhulkeenna soo gelinaysaa qof doonaya inuu dhaco oo uu qaato mulkigeenna rabana inuuna kala geeyo oona kala qoqobo markaas ayuu almuctamad ibnu cabaad ugu jawaabay wiilkiisii wallaahi wiilkaygow ma doonayo inaan andalus ka dhigo daarul kufri kadib iyada oo ah daarul islaam mana doonayo inaan nasaarada uga tago oo markaas ay isoo lacnadaan dhammaan ummadda muslimiinta sida horeyba dad badan loo nacladay oo kale wallaahi inaan geela raaco ayaan ka jecelahay inaan doofaarada raaco waxa uu ogaaday alfonsos inuu almuctamad ibnu cabaad oo gurmad iyo gargaar u dirsaday yuusuf ibnu tashfiin markaas ayuu alfonsos warqad u qoray dhankaas iyo dowladii maqribul islaam asaga oo ugu goodinaya in haddii ay u soo gurmadaan almuctamad oo labada mandiqaba waa andalus iyo maqribi oo labadaba mar qura qabsan doono isla warqadii ayuu yuusuf ibnu tashfiin ugu jawaabay alfonsos asagoo ugu jawaabay dhabarka dambe ee isla warqadii uu soo diray waxa uuna ku yidhi waxaad arki doonto ayaa jawaabku ugu filan insha allah intaas kadib waxay gudagaleen ciidamadii muraabidiintu inay ka soo gudbaan magaalo xeebeedka sabta una soo gudbaan dhanka iyo andalus isla markii ay ciidamadii mujaahidiinta ahaa soo galeen badda soona gaareen jabalu daariq ayaa baddii ku kacday markaas ayuu yidhi yuusuf ibnu tashfiin inta gacmaha kor u taagtay oo uu allaah baryey ilaahayow haddii ay khayr ii tahay muslimiintana khayr iyo anfac u leedahay inaan baddan ka gudbo ilaahow ii fududee haddii ay shar ii tahana ilaahow igu cuslee isla markiiba uu ducadii dhammeeyey ayaa baddii degtay oo xasishay doomihiina waxay ku socdeen si habsami leh ilaa ay ku xirteen xeebihii andalus kadib amiirkii ciidanka watay ee yuusuf ibnu tashfiin ayaa sujuud la dhacay allahna isku bihinbihiyey ugu dambayntii waxaa wada kulmay ciidamadii uu hogaaminayay yuusuf ibnu tashfiin iyo kuwii uu hogaaminayay almuctamad ibnu cabaad oo isku dhinac ah iyagoo wajahaya nasaaradii oo uu horboodayo alfonsiskii lixaad waxaana xusid mudan in ciidamadii kirishtaanka ahaa ay ku laba jibaarmayeen kuwii muslimiinta iyagoo hore u soo kaxaystay ruhbaantoodii nasaarada ahaa kuwaas oo sare u qaadaya beebalkoodii si ay uga caraadiyaan uguna dhiirigeliyaan ciidamadooda dagaal 6 saacadood oo xiriira socday ayaana dhacay waxaana dhagta dhiiga loo daray ciidamadii gaalada ahaa waxaana ka badbaaday 100 nin oo uu hogaaminayay alfonsos oo laftiisa lagu dhaawacay dagaalka kadib markii uu geesi kamid ah ilaaladii yuusuf tashmiin oo boodada kala helay seeftiisa la dhutiyo nabarkaas ilaa uu ka baqtiyay markii ay qorraxdu dhacday oo alfonsos uu ogaaday inuu wajahay ciidan aan geerida ka baqayn hilowna u qaba la kulanka allah ayuu go'aansaday inuu isaga cararo macarikadii goor habeen ah asaga oo u insaxaabay dhankaas iyo magaalada quuriya waxaana saaxada u haray ciidamadii muslimiinta xaq u dirarka ahaa ayadoona guushaas muhiimka ah ay suuro gelisay in muddo dheer ay ka badbaado andalus inay nasaaradu qabsadaan oo ay gacanta u gasho laakiin qaladka ay muslimiintii waqtigaas galeen waxa uu ahaa inaysan sii wadin baacsigii nasaarada si looga xoreeyo kirishtaanka gumaysanaya magaalooyinka duleydila iyo kuwo kale oo gumaysi ku jiray ayaga oo ka faa'iideysanaya jabka weyn ee soo gaaray nasaaradii uu hogaaminayay alfonsos waxaana si degdega u laabtay yuusuf ibnu tashfiin kadib markii uu geeriyooday wiilkiisii abibakar ahaa oo uu uga soo tegay maamulidda dowladii muraabidiinta ee maqribul islaam halkaa ayuuna ku laabtay si uusan u imaanin isku dhexyaac ku yimaada dowladii muraabidiinta oo caasimadoodu ahayd magaaladii maraakish مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا